ugu horeyn munaasabadani waxaa ka hadashay xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Djibouti oo ka warantay dadaalka NFD ee horumarinta haweenka Djibouti ee gacansiinta guud ahaan haweenka. waxay sidoo kale tilmaamtay ahmiyadda ballaaran ee ku xusan maalintan iyada oo loo aasteeyay in laga waramo horumarka haweenka iyo qiimeynta waxqabadkooda intaba. xogayaha guud ee NFD oo ka hadashay xuska maalinta qaran ee haweenka ayaa waxay ugu horeyn ka warantay wax ka qabashada xafladani loogu xusayo maalinta caalamiga ee loo aasteeyay haweenka. waxa aan salaamaya dhammaan haweenka reer Djibouti ay ugu horeysay hooyada dalka Marwa Khadra Maxamuud Xayd. munaasabadani waxa uu yahay fursad lagu eegi karo xaaladda nololeed ee haweenka Djibouti iyo dhowrka ay kaga jiraan horumarka dalka oo loo eegayo kaalinta ay kaga jiraan kobaca dhaqaalaha Djibouti muddo haatan laga joogo 40 sano. waxaa xusid mudan in wax laga ifiyo haweenkii qayb libaax la ka qaatay gobonimada doonkii dalka iyaga oo u horay naftooda maalkooda waqtigooda iyo xorriyadda dalka. haweenku waxay muujiyeen midnimo qaran waana kuwii u halgamay dalka daljacayl awgeed. haweenku waa hooyo waa hoy lagu hoydo waxay iftiin u yihiin bulshada maanta. munaasabadani aad ayaan u salaamayaa balse waxa ay mutayseen in laga garab galo culayska hooyada oo laga fudaydiyo.